السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو ونحسن ملكستو أتشوفتان waxaan doonayaa inaan casuumo oo la sheekaysto Sheekh Cabdulqaadir Kishki oo culimadiinka salafiga ah ay ku xukumeen ama ay u fadwoodeen inuu yahay nin diinta islaamka baxay oo gaala oo baadariya waa sidii sheegan nimankaasi ay ku fadwoodeen marka arrintaas ayaan caawo aan kala sheekaysan doonaa وكان هو صوق على الشيخي هذا أركز الشيخ وحصاغر سيان كوع عسومه كيسكي انت كو قرب هذا دونتا كيسكي 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 وكان فتيشن أدري شيخ عبد القادر كشك هذا أركيس وحصاغر كومنتي أساوار السومادنا وكوسو الدري مو إنا هلس إنك له اوكي اوكي يوسف الشيخ كيش سبكو كي لا فلك هذا نقليا وكل الشيخ واكرا الشيخ كيش قضي أركيس واكرا ديار أتسوقرتي صح هدان كو هيا أيام بالمرة الشيخ كيش كوك علي السلام عليكم الشيخ كيشكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولالك الداهر على السوف وعليكم السلام عدك يسفع على مغشاء عدك وسوى ناكسنا المخلادي عدك قوم مغشاء آسفة أنا عدك مغلا أنا كنا وقادنا وجعل لها وهي الدعوة ريال عاوة كان الشيخ عبد القادر كشكي وديار لايكو كجرا وحوي شيخ علماء الدين وكمية الشيخ شبل الشيخ أمول يكوكل أو بدن وسلفية waxay ku eedeeyeen ama ay u fadwoodeen inuu yahay nin gaal ah oo baadariya sida ay sheegeen iyagu marka ayaa marka ugu horeysa weydiinayaa fadwadii ayaan arkay sheekh shibil hasan ku soo raadiyay Cabdulqaadir Kishki madaa'i muslima oo diin islaam ka shaqeeya tahay mise baadari faafiye masiixi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى walaalkayga daahir calasow iyo walaalaheena sharafta leh inta daawanaysa iyo inta ugu sharaftay iyo inta ka shaqeysay arintan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ii sharaftay inaan noqdo kii u qalmay soo dhaweyntaada arintan kale ku saabsan aniga gaalaysiintayda walaal iyo dadka Soomaaliyiinta muslimiinta oo dhan waxa habboon horta inay ogaadaan qofka ugu horeeya ee qolyahan salafiyiinta ama wahabiyiinta ay gaalaysiiyeen oo gardaro iyo ku been abuurad lagu gaalaysiiyay kishka ugu horeeya culimo badan ay iga horeysay marka iyagana waa nidaam u degsanaa oo Soomaalida aan badana aysan la soconin aysan ogeyn imaam Tajuddin Subki kitaabkiisa tabaqaat ash-Shafi'i mujalladka koowaad wuxuu ku sheegay
caado waxay ka dhigteen qofkii iyaga khilaafsan inay ku been abuurtaan kadibna waxay u yimaadeen sheekhoodii ugu weynaa waxay ku yiraahdeen sheekh ma noo bannaan tahay dadka annagana khilaafsan inaan ku been abuurano sheekha wuxuu yidhi sawma aanan banaysanin annaga dhiigood qofka haddaan na khilaafsan dhiiggiisa noo bannaan yahay dhiigga wixii ka sokeeya dhan way bannaan tahay marka saa daraaddeed iyaga uma arkaba dembi inay ku jiraan qofka hadday ku been abuuranayaan aniga culamaa iga horeysay waxaa jiray sheekh axmed qutubi hadda ka hor ay gaalaysiiyeen oo gabay laga duubay just wuxuu yidhi xijaabka khasab ma aha jilbaabka in la qaato qabta hadday ishagoogto way xijaaban tahay dagaalka markuu bilaabay waxaa soo galay sheekh cabdiraxmaan shariif markiiba waxay kasoo saareen clip inuu shiico yahay oo been abuurad yahay ka hor waxaa ka xoreeyey sheekh weynaa caalimka ahaa ee ku nool ingiriiska sheekh cabdullaahi sagal oo caalim ah runtii sheekh markay ogaadeen inuu madhabtooda khilaafsan yahay laba isugu tagtay rasputin iyo erselovin shibilbotin iyo imullovin labadooda isugu tageen waxay yidhahdeen ninkan waa shiico been abuurad ah marka kishki dadkaas dhanaa ka horeeyey kishkina sidoo kale nin madhabtooda sheegto ma aha salafi ama madhabtooda ma aragta lagu tilmaamo magacan wahaabi oo xataa aniga runtii magacyadaas xataa hadda aan ka xishoodo inaan isticmaalo oo ma qalmaan in salaf lagu magacaabo oo mana qalmaan saanu arka in wahaab waa magacyadii ilaahay ay ka mid tahay صح waxaa lagu sameeyay sheekh ibn abdul wahhab laakiin aniga meesha la oran lahaa wahaabiyiin waxaan ka jeclaan lahaa in loo bixiyo nahaabiyiin nahaab yacan qofka dadka dhaco weeyaan diintii dadka way ka dhaceen diintii islaamka intaan san dhaxal noo ahayd iyaga dhaxle ee dhaceen oo culimadeeni ilaalin jirtay islaamka ku ilaali Soomaaliya qubuurahooda ay dumiyeen saa la socotid dadka waxa lagu eedeynaya kishki waxa lagu yiri waxa taa quraani axaadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabada xadiiska Allah ka yeelay alayhi salaatu wasalaam ma aaminsani ama waan xaqirtaa waxa ku tilmaamtaa axaadiista inay yihiin kuwa daciifa walaal daahir iyo inta daawanaysaba inta cajaladahiga aad dhageysatay cajalad aan xadiis ku sheegin ma aragtay 94 kan kala ka bilaw duruus inaan akhriyo ilaa hadda 10 aan akhriyay oo axaadiis nabiga ka maqan ma arkin ha noqoto duruus aan akhriyo ha noqoto tafsiirka ama ha noqoto khudbooyinka jimcada axaadiista nabiga igama maqna iyaga axaadiista qaar ay u arkeen inay daciif yahay way sheegaan xadiiska مثلا ku saabsan tawassulka oo xataa sheekhood albani saxiixi laakiin iyaga waxay diidayaan awliidin lagu tawassulo waxay yiraahdaan xadiiskaas waa daciif xadiiska ay rabaan iyaga way daciifiyaan anigana axaadiista cilmi ahaan aan u soo bandhigay inay daciif yihiin waxaana sababa saa si u daciifin kartaa culimada igaaga horeysay oo horteeda daciifiyaan oo ka hadleen oo aniga wax jeebkayga la yimid aysan ahayn ijtihaad dadaalkii aan sameeyay axaadiista ciladooda aan muujiyay sida daraadeed qofka quraaniga waa qofka yiraahdo aniga axaadiista nabiga ma qaadanay quraanka ay ugu filan anigana mar walba waxaan iraahdaa qofka quraaniga waa qof nabiga ku caasiyay oo nabiga haduu axaadiistii uu ku caasiyay laakiin axaadiistii waxa ku jira qaar aan saxiix ahayn qaar nabiga laga been abuurtay kuwii looga been abuurtay ee xukun laga dhigay haddaan soo bandhigay aan iraahdo xadiiskan waa daciif ciladiisana waa ninkan beenlowga ku jiray ininkaan la aqooni in noocaas oo kala ah qaladkayga ikaadi shaqishki waxa tiri sidaan maqlay weeye ay ku iskanayaan ma taqaana hadii ninku uu la galmoodo haweeney uu saqabin xukunkiisu dil ma aha xajmiga lagu sameeyay dil ma aha ayaa tiri saan ku waxa sax su'aasha ninka haduu la galmoodo asagoo guur soo maray taasa ka wada asagoo guur soo maray ha asagoo guur soo maray midda isku waafaqsan yahay oo qofka haduusan guur soo marin in xukunkiisu yahay jaldi jaydal illa karbaasho tan kale oo khilaafka ka dhalan kara waxa weeyaan qofka haduu guur soo maray ee zina ku dhacay xukunkiisa muxuu yahay jamhuur culamo badan waxay qabtaa xukunkiisa inuu yahay in dhagax lagu dilo qaar oo kamid ah khawaarijti oo kamid ah mu'taziladii khawaarijti kulligooda oo muslimiin ah iyagoo dhan waxay qabaan qofka had guur soo mar ama aysan soo marin inaan dhagax lagu dili karin oo ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay in la jeedalo ilaahay quraanku ma uusan sheegin in dhagax lagu dilo haddaan usoo degnaa anigoo kusoo koobayo culimadii xadiiska yani markaa soo qaadatid xaafid ibn xajar al-asqalani iyo imaam al-ayni labadoodaba waxay leeyihiin hadduusan jiri lahayn hal xadiis oo lagu magacaabo xadiis al-casiif waxaan oran lahayn axaadiistii rajbiga ku timid waxaa nasakday ee tirtirtay suuratu nuur sanadkii 7 soo degtay laakiin xadiis al-casiif dadka soo wariyeen waxaa kamid ah abu hurayra sanadkii 8 oo muslimay oo dhahay xadiiskaas marka in dhagax lagu dilo xadiiskaasna ciladiisa waan sheegay xadiis fard oo qariib inuu yahay
علماء بدن كسو هرجيد حديث كفردي غريب إن حكم لقى دكتور marka laftirkooda culimadii qaar ay yiraahdeen hadii xadiiskaas ahaan lahayd rajmiga waa nasakhi lahayd oo abu xakamid xaafid ibn hajar ee ay makale marka midaas arin waa fiqh oo ijtihaadi ah qof wax lagu gaalaysiin kara aqeeda ma aha fiqhigan oo ijtihaad ku sameeyay cilmiga fiqhigan waxa weeyaan la inkar fi ijtihaad masaa'isha qofka haduu cilmi ahaan ugu dadaalo soo bandhigo munkara sameeyay lama oran karo waa lagu ixtiraama qaacida weeyaan iyaga dhaxdooda waxay isku ijtihaad isku khilaafaan isku ma gaalaysiiyaan sheekh bin baaz wuxuu yiri qoftina wajiga daboosho waa waajib sheekh al-albani wuxuu yiri waa wax fadli wax wanaagsan hatta sunna ma oran maxay isku gaalaysiin waayaan labadooda misal maadaama ay wahabiyiin ama nahabiyiin isla yihiin isma gaalaysiinayaan iyaga laakiin qofka kale waxa way cilada loo raadin on waxaan ku weydiinayaa marka xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu joogay ma dhacday in nin aan guur soo marin uu sameeyay galmo oo dhagax lagu dilo ma dhacday nin guur soo mariya ka wadaasay hadalkiisa faham nin guur soo marin aan soo marin nin guur soo marin dhagax lagu dilo ma jiro taasna waa isku waafaqsan okay nin guur soo maray oo dhagax lagu dilo ma jira taas la isku haystaa hadii uu jiro nin guur soo maray ee dhagax lagu dilay bulsho badan ay daawanaysay arinta maxaa khilaaf badan u soo galay xadiis wuxuu leeyahay hal maalin ay sheekada ahayd xadiis wuxuu leeyahay laba maalmood xadiis wuxuu leeyahay saddex maalmood xadiis afar maalmood oo nabigu kusoo laalaabanay kee qaadana xadiis wuxuu leeyahay goda la geliyo dhagaxa lagu dilay xadiis wuxuu leeyahay geeda lagu xirxir dhagaxa lagu dilay xadiis wuxuu leeyahay sidiisa loo sii daayay dhagaxa lagu dilay xadiis wuxuu leeyahay dhooqa dhagaxa lagu dilay oo ka dhinto xadiis wuxuu leeyahay wuu baxsaday ilaa nin musaafir ah wadada ka arko laf geel asagoo xambaar dafti geel ku garaacay oo ku dhintay taa marka hadii sheekadaas dhacdo waaqic ay tahay inta khilaafaad ma soo gali lahaa xadiis wuxuu leeyahay isaga masaajidkii nabiga soo raadsaday may nabiga isaga doonay oo nabiga raadiyay ما dadkii saakeenan oo qasab lagu keenay masaajidka taa qaata marka waan ku eeri markuu shibili ugu gaalaysiina hal xadiis saxiix miiska adiga aqoontaada cilmiga markaas diiniga ah sax qofka guur soo maray ee macsi ku kacay xadmigiisu muxuu yahay aniga waxaan aaminsanahay ajaladna ugu sheegay ajalada 42 qofka haduu guur soo maray ama guur soo marinba ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay in la jeedalo 100 karbaash 100 jeedal in lagu dhifto يعني يقول مش إلهي ما كل شيء كي سامري خطوة بوزينا كلها إلهي وحير بقول كرباش على ودفته أنا تاسن خوالك وحي كبحسن هدي اللي يراهدو عقابته مدك السؤال عن كويدنا عقليا ما دينيا دي عقلي أهان عقاب نوح كديل يعني لو جبارنا ما نكون كرتو كربرنا ما نكون كرتو سماها قف كان قدر لقى حلو ديلي هذا إله هذا عايد وكلية هي خفت الضامة أهيد هذا جورسته أو يده جور كجرته أي زنا كل عضو عقابته هذا وتيف حرته أهيد كلا بركة لقى كديل كلا بر ما نخذها مركة ما نخون كرو سواء كل النبي حاسس كزلا وحيرة هذا الزنا كل عام وعقابته يقول لا بجبارة لو بجبار لقى كديل لو بجبار ما نخون كرا وقف كقول لقى حلو ديلي لو حاسس كزلا جور ويسامرين وايا haddii la helo xadiis buqaari oo saxiixa oo la isku raacsan yahay waxa waraysan doona culimo kugu xigto haddii la helo oo xukminaayo in xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogay qof guur soo maray oo sina gala dhagax lagu dilay xukunka muxuu noqonayaa xadiiska buqaari iyo muslim xadiista ku jiro lama oran karo boqolkiiba boqol nabiga uu yiri حتى الشيخ الألباني uu yiri qof walba cilmiga xadiista dhaxgalo uu ogaan kara buqaari iyo muslim inay ku jiraan xadiis daciif ah أحاديث موضوعة يعني ضعيف كسيه سيلو صدق جلي يا حديث صحيح أهبه قف كيد أنتار إنكران عقلي يسأيو إنكريو مرك هدي لي راح تبخاري يصوري أحاديث البخاري يصوري ضعف وكجري كرا تان ولا حد لكرا ولا مناقشون كرا لكن شبيل لي مركو يري أحاديث رجمة وحيهين متواتر وحوى جروب أي نوي كم مخلي جروب كلا أسوق جدبيين إلا كسو جار بخاري كان متواتر كحكم كيسرو مع حكم قطعي حكم له يعني اوكي محمد متواتر كعير صدن اسداد صحابي يصوريان صدن اسداد صحابي صدن اسداد تابعيه كمخله صدن اسداد كلا waxa loo baahan illa bukhari ka soo gaaro صدن اسداد qafood oo hadalka asagoo siisa ah waxna laga bedelin oo cadeen waadix ah hal xadiis ha keenan uu keeni way todoba culimo soo qaatay oo fuqahaa ay yiraahdeen waa mutawaatir anigana 19 culimo soo qaatay yiraahdeen ahadiistaas mutawaatir ma waa ahad wuuna ka jawaabi way hadalkayga إلى ضلال كبحيسين. وياي وحنا وريسنا يا علماء أهل السنة الشيخ محمد عبد الله علي فوكمدي هاي الشيخ حسن يا فوكمدي هاي هدي أي راحان أي رهدان وصحيح حديثك وهدي أصامر جور متقنا حكم كيسوا متقنا ورجع اللي قدره
صح adigu xubkaaga muxuu noqonayaa soo ma markaa quraani inaad taas sax ma noqonayso maya quraani qofka horaan kugu sheegay walaal daahir quraani waa qofkii yiraahdo xadiista aniga saxiix iyo daciif waxaan qaadanayo ma jirto waxaan ku koobanahay kaliya quraanka anigana axaadiistii waan qaadanaan eri hadduu yahay xadiiska hadduuba dil ku saabsan yahay ugu yaraan waa inuu soo gaaraan eri darajat alcaziiz caziiz waxa weeyaan laba nabi ka maqashay labadii mid kasta laba kala kasii maqashay kii kasta laba kala ka maqashay kaa waxaa lagu magacaabaa xadiis caziiz hadday ii keenaan hal xadiis oo caziiz ah oo darajat alcaziiz soo maray aniga diyaaraan ahay inaan la niqaasho way aduu jamaacada ka tirsan tahay aduu maal waxda tahay aduu maal itixaada tahay masalafiya tahay maal ihtisaam wal kitaab wa sunnah kuma la isku yiraahdaa tahay ma ahlu sunnah wal jamaaca tahay ma islaaha tahay ma damujida tahay adigu qolada ka tirsan tahay aniga walaal qolo aan ka tirsanahay ama jamaaca mucayan aan ka tirsanahay ama urur aan ka tirsanahay ma jirto ururada inay jiraan waaba ka soo horjeeda aniga waxaan ahay qof muslim ah ku dhashay wadan islaami ah ka dhashay famil muslimiin ah weligeyga waxaan ahaa nin sunni wal jamaaca ahlu sunna ah weligey waxaan nin caqiidadiisa ashcari ah weligey waxaan madhabtiisa nin shaafici ah weligey intaas iskama bedelin marka nin waxaan ahay muslim ahlu sunna wal jamaaca oo shaafici ah oo tariiq ahaan qaadiri ah weligeygana ma noqonin salafi ama sheekh ku soo baray kitaabada ku soo baro oo culumtan islaamiga ku soo baray waa sheekhay aniga sheekhayga ugu horeeyay waxay baray horta waxa aabahayga ilaa oo naxariista kadibna culamo badan yani duruus waan ka qaadan jiray tafsiirka waxaan ka bartay shariif sharafow cilmi alxadiiska waxaan qaar wax badan ka bartay sheekh ibraahim suuley cilmiga luqadda carabiga caqiidada waxaan ka bartay shariif saadaad ilaa oo naxariista culamada waaweyn wax kasii bartay waxaa ka mid ah sheekh cabdilxamiid kishka oo masriga ahaa oo azhariga ahaa oo laygu nigna magac isaga aan ka qaatay sheekh kishka laygu baxshay marka culamadaasna waxaan kasoo bartay jaamacat alazharna waxaan kasoo bartay aniga adi xagee ku dhalatay sheekh kishka شنغاني شنغاني واي واحد تري واحد أنا قادرية أو أهل السنة والجماعة صح طريقة الصوفية تشاشة صح هذه علماء طريقة الصوفية إلى حكم كوبناية كوسا علنية ما حال حكم نظرية هذه ولا قف يقول صومر نجح اللي ودر وبناية هي حديث ضعيف ما هي حديث كهو صحيح أنا السؤال شان ويدي ولقين أو ويدينا إلى هذا أنا كنت أجنا هلاقي كان حديث عزيز لما صار مغشي لو بالله وكله سوق جد بس حديث عزيز هذا كانان وهو كان سنانا حكم كذا وياك وحنا رأينا فيديو ولا صاير ترى إنك صار ممكن تطبقه النقدي لكن كان أجدني سوق هنا سمتقنا رسولك صلى الله عليه وسلم هي نك الرئيس بينه بادرك النقدي صح باللافظ المحوية لكن كان ولا لحقها سؤال أو يعني أما فدنا وسوجي لوجو مقعد زكريا بطرس أو مسيحي أو كنا أستراليان أو ملاينا مركز صدحدان قضب طبعا كان قضب أي ساقات ير مسلمين النبي يقول سدا إسانو أحاديثنا وساق هذه أو كخرم كتبتنا أو عدين سعرت السبب والشاقي مركا وحاليا لسه حرير مالك للدبن أو أرضي جامعيين أو يرى أرنتان أنا سوق دان إسلامك وجب حين أرنتان الشيخ وماك هذا الشيء تاعي وكلفتي إن أنا حديثي عن صوب بندقو عن إرادة مدبت إن أنا أساقاته سانو يري حديث كان الصح معها الذي سوى سذا أما حديث سامع هنا ولا جديد النبي وحوس بسذا أي أهيد أو يعني إن شرحه سيدكي أبو فائدة استاد كوي إسلامك كبحين أو كسر لابتان كوي مسلمين تعانى أو كفانا النبي قود محمد عليه الصلاة والسلام marka aniga igama ahayn nabigan sumcadiis inaan ku cayaaro ka been abuurto laakiin hadda marxalad waxa la joogaa media sa la socotid waagi hore ninkii ruwaayiga ahaa François Voltaire wuxuu oran jiray qofka adduunka ugu aftahansan oo ugu indheer garadsan hadalkiisa ikan diyaar waxaan u ahay inaan kala jarjaro ka soo saaro wax cadeynaya inuu ku muteysto in la dilo adiga maanta media soo fadhiistiraad maanta waxa idin macneynaa la ilaaha illa allah ilaah ma jiro allah mooyaane in la soo qaata wax la oran kara daahir cali soo ugu gaalo wuxuu yiri ilaah ma jiro inta kan la waa laga jari kara tii marka qofkii walba kugu sirmi kara daahir cali soo gaalo noqday hal la lacnado waa la oran kara media sahal weeyaan laakiin ajalkii oo buuxo qofkii inuu dhageysta haboon marka nabigeena calayhi salaam dadka uu ku tilmaamay shanta ahlu naarta wuxuu ku tilmaamay ad-dhaif alladhi la zabra lah alladhina fiikum tab'an qofka aqliga gaaban aan aqlina isticmaalin iska hoggaansan oo wixii loo sheegay iska qaadanayo qofku waxa loo baahan inuu baaro in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu hadii qof faasiq war idin keeno hubsada gaar ahaan qolyaha nahabiyiinta warkii ay keenaan ha la iska baaro sababtoo ah qofka inay ku been abuurtaan dambi uma arkaan iyaga
waayahay guurka nabiga aan ka hadlayna sallallahu alayhi wasallam Aisha maxaad ka tiro lagu haystaa cajiib weyn sababtoo ah adiga naftirkaaga adigoo damiir leh oo caqli leh haddii aad heshid xadiis ku cadeynaya nabiga markuu guursanaya Aisha qaf yar ma ahan qaf weyn ay ahayd waad ku farxi lahayd nabigan sumcadiisa dhawrtay cadawgii la dagaalamay dhaay nabi maxamed wuxuu ahaa nin child abuser cunug yar guursanaya wixii axaadiistii marka aan ku laabtay kulli riwaayad wuxuu ku soo arooraysaa hal nin la yiraahdo Hisham ibn Urwa oo markuu Ciraaq u guuray ee maskaxdiisa xoolaha qasantay oo gaboobay oo ku hadlay hadalladan oo isaga laftigiisa wuxuu oran jiray ani xaaskeyga waxaan la guursaday iyadoo 9 jir ah waxayna iga weyn tahay 13 sano 13 sano haday ka weyn tahay marka adiga dhalinaysa 13 jir ay ahayd 9 jir ku guursatay marka yani maskaxdii nin qasantay ayaa saa ku hadlay oo la soo qaatay marka axaadiisaas kuwii ugu muhiimsanaana waan soo qaatay mid walbana ciladiisa waan ka sheekeeyay marka saa daraadeed aniga bilaa cilmi daro uma hadlina cilmi ayaan ku hadlay waxayna iga ahayd sumcadii nabigaaga dhowr oo ka dhowr nabigaaga in lagu tilmaamo gobol yar oo 6 jir ah ayuu guursaday iyadoo 9 jir ahna oo toys xambaarsan ayuu la aqal galay taana waa halkaas xadiis oo laga soo wariyay Hisham ibn Urwa marka ma ku saxnaa taas ku qaldan isleeda aniga ilaa hadda waxaan ictiqaadsanahay ijtihaadkayga iyo dadaalkayga inaan ku saxanahay laakiin waxa la nabigu ku eebinaya inuu guursaday gabar yar iyaga ku caawan taasna jahligeena uu keenay anagoo kalsooni iska siinay axaadiis aan baaritaan ku sameeyeen laakiin qofka haduu baaro wuxuu soo ogaana waa tan ugu sahlan aan ku soo qaban karo waxay tahay axaadiista waxay cadeynayaan Abu Bakar carruurtiisa dhan inay dhasheen waagi jaahiliyad intuu islaamka imaanin nabiga markuu guursanayay 13 sano ayuu maka muslim dacwada ka waday ugu yaraan hadii markay nabiga waxay ku soo dagaadeen Allah 13 jir ahaan lahayd soo ma aha tan labaad walaasheeda ka weyneed Asmaa 10 sano ka weyneed 10 sano Asmaa ayaa weyneed markii uu soo hijroonayeen Madiinana Asmaa 27 sano jirtay 27 sano 10 sano hadii laga jaro Aisha mise jir lahayd 17 sano jir lahayd ee 6 jir ma noqon lahayd tii ka weyneed 27 sano jirtay tan 10 sano ka weyneed tan 6 sano u jiri kartaa ama 9 sano u jiri kartaa xisaabtii wixii loo baahan la isku keeno waayahay shaqishku waxaan ku weydiinaa nimankiinaan ma taqaanaa culimada dig Soomaaliya kamid tahay islaamkaad baratay qof Soomaaliya ayaa oo sargaal ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan ayaa dawladda Soomaaliya dhiibtay oo Itoobiya oo dawlad gaalaha u dhiibtay Sheekh Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax صح maxaad u aamusada xukunka soo saari weys fadwo maxaa u saari weys duruufo qaarkeed daraadad tan koowaad aniga ma ihi qof siyaasadda ku xeel dheer kuna fiican aqoon u leh siyaasadii la yiraahdo maanta adiga aan ku soo fadhiisto waxaan noqonaa wiil yar oo garguuranaya agtaada imid adiga igaga fiican siyaasadii akhbaar si ii soo gaartay badan dadkii soo gaarsiinay waxa u badnaayeen ama dad qalbi dhagax la qabiil ah oo qabiilnimo u dagaalamaya iyo qaar dawladda mucaarad ku ah oo fursad u arko dawladda inay ugu faa'iideystaan laakiin aniga waxaan ognahay diiniyan سئل القرآن كسكيري وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق قفكي معرفتي قرقار كويديس دولدي إني قرقار سيسويان إلا قولدي إذن كده حيو بلامو أنا شخصيا هذا كندا دقنا جنسية كندا أيان حنبار سنة بلنا أنا قد حيو أنا كندا أنا نظام قول خوانوك وهو قان سنة قفان كدي لي أمد دنبيان كقالوا وحان كله انت صوماليا دولد صوماليا وحا واجبكو إني يقصوا عليان كندا مركني كان أنا أرنتيسا أقوم في عن أنا لهين سأبرد وحن أرنكرا عبد الكريم قلب دغع هذو من مواطن أو صومالي أو إثيوبيا جنسية ذن خاذنين أو عهود ميثاقنا كدحين أو سيجر دراء الله قبتي لوجي إن لو قدرنا دولتك خلدنات إن لو بهين دولتي إن يصحد حكم الديني قام محوية هاي حكم الديني قام محوية هاي محيط الإسلام كقبتها قف مسلمة أنت لا قبتها إن قالك أنت لو قليو هدي قالواس جنسيتoodu haystay oo dawladii diiniga ballanka wada dhaxaysay ballantii dawladdeena ofis waajib ay ku tahay ilaa quraanku yiri laakiin hadii ballanka dhaxaynin ee gardaro u geysayna gardaro ka dhacday weyn dawladii waxaan ku dhahay qofka qof muslim waayo oo dalkiisa jooga sax dastuurkana uu qorayo qofka Soomaaliga inuu xaq oo muwaadin yahay xaqna uu leeyahay qofka kale intuu leeyahay kala Soomaaliga aniga dastuurka Soomaaliya aan ku sheegay siyaasad khibrad uma leeyahay mana aqaan laakiin aniga waxaan weydiinaysaa mas'ala diini okay qof muslim oo Sacuudiyana صح qof muslim Sacuudiyana hadii ay Mareykanku soo dalbadaan salahan wuxuu heestaaba ka soo qaad Soomaali waa Sacuudiyaan waa muwaadin Sacuudiyaan hadana dalashada Mareykanku heestaa ama adiga xataa Soomaali waxa haysta dalashada Kanada hadii dawladda Kanada ay Soomaaliya ka dalbato
قلت يعني كهنلوسو دي هو دمبيلي صح واللي ودي سامك حاجة قبطة taas dawladda waajib ku tahay inay ii dhiibto haddaba jinsiyadda Canada aan qabay ee waddankiina khalad aan ka galo ka dhuuntay Soomaaliya aaday Soomaaliya waxa waajibka inay soo celiyaan si nabigeena calayhi salaam uu ku sameeyay sulhul Hudaybiya markay yiraahdeen qofkii muslim ah ee Makka ka soo baxsaday idin yimaado way inoo soo celinaysaan nabigu ka ogolaaday uu saxiixay qaar soo baxsan uu celiyay reer Makka sababta heshiis laga dhaxmar waa dawli okay haddii dawladda Itoobiya ay dhul yaa Soomaali galbeed ee xoog ku istaamay gumaysato sax qofka ku dhashay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid noqday sax ee ambassador-kooda wiligood qaadan oo haysanin haddii yiraahdaan hanaloo soo dhiibay loo dhiibo idan maxkamad la marin idan wasaaradda shaqada la marin haddii loo dhiibo diisaanku waxay ka qabtaan aniga waxaan arkaa arrimahaas oo dhan horta arrin siyaasi oo mana jecel siyaasadda inaan si fiican u sii dhex galo laakiin saan kuu sheegay waxaan u badan tahay ama aan u arkaa marka waxyaabo badan aan fiiriyey arrinta ku saabsan qalbi dhagax inay tahay dulmi laga galay ninkan walaalkeena Soomaaliga ahaa maaragtay laakiin aniga si detail oo daqiiq ah oo maaragtay oo isku hawa aan ku hadli karo ma aanan haysanin saas daraadeed ayaan ugu aamusay laakiin general ahaan si hadalka igu soo gaarayo waxa nin Soomaali muwaatin ah oo jinsiyadii xaggana uusan haysanin ee si gardara ah loo gudbiyay taana waxay ku habboon tahay dawladda haddayba nooshahay khaladkaasna ay gashay khaladkaas inta ay nooshahay inay saxdo ay ka soo laabato sababtoo ah Umar ibn Khattab wuxuu oran jiray baqal hadday ku turanturooto Ciraaq Ilaahay wuu weydiinaya iska dhaaf qof bini aadamku Ilaahay karaameeyay hal qof oo dulmi laga galo waxa laga dulmiga qofkaas laga galay nafsigiisa inuu dawladii dhanba ku baabi'iyo waya sheekhiskii culimada diinkiina waxa leeyahay waxa la ku eedeeyaa masaajidu waxa ka tuugsataan lacag la keeno sidana hala yeelo waxaas loo baahan yahay haddana lacagaas aad magaca agoonta iyo ku qaadaan masaajidada iyo wax oo dhan lama arka meel aad marisaan marka tabartiinu intaas kale inaad islaamaha lacag ku gurataan waxna aad qabanina akhi daahir culimada dhan isku mid ma wada aha dad waa jiraan mutafanniniin khibrad u leh sida dadka lacag loogu dhaco waa qolyahan hadda aan u baxshay nahabiyiin culimada ahlu sunna wal jamaa ama culimada suufiyiinta zaahidiin ay ka yihiin culimada يعني أشاعرة سوكلا ويكفوجين علماء الشافعية ما أنتس مجالان لكن خليها كلية ويان خليها كنت تخصصي يعني بروفيشنال أولى حبكي يجيل لهاين اسكو يسين لهاين أقيلين لهاين أو عيادة حتى عدان أو كين لهاين سيدتك يلعب أو خاتان لعبت أصلا بدنا يعني الله أعلم مالك كبحث صوت خير بدن واتقان عليه الله سعودي أيضا ويلي جود الشخصين ماتنا مليونير إنيهين حقيقة كانن أنا لك ولي قانا حتى كوا عدو جيجو هالكان إلى الدقن كندا ويأجيهن واجن إمد وحمالن جري وشقين جري هذا الدكان أي فرنان هي لبلان أي لبجرجرة أو ما أعرف سوبر ماركت إسكاله حوالدنا وشقيا ولي جديد كي جميرن جري إلا أي حد أنا خف كي يراد كشكي هل سنت أيو الدين تكوخاتي والله بالله تالله بين أيو إيش شيء مركو علماء ضمن أمور السنة لكن قلاء ولقوية قانا أو شغالي مشوات عدد كحالة صار أغنعه وهذا dhiigoodan ku banaysto ku dilo lacagtoodii waya su'aasha aan ku weydiiyo waxa weeye ninka la sheekh Shiwi halkan ay doofan u degalay magaalada ugu dhow sax oo 20 daqiiqo jirto deganaa sax dugsi quraan ku hayay kadib dawladda horan ayaa dabagal ku samaysay habeen madow baxsaday arrimo argixisaan lagu qabsaday sax Kenya tagay isaga sheekh Obol maanta sheekh Obolna dugsi quraan ku hayay mataqaan street maanta labadu waa tujaaro weeyo lacag bay iska haystaan sax lacagta halka keenas dhigta والله أنا الله أعلم ارتاح حقائق سرت هذا إله لكن ماشى لا أرم وينهم موقتها أرن أنا صومالي مركا أن جوج أن لصعدي حتى خارة اسنقينا أصحاب أن أهين أو سعودية مال جلنسين جرتين أنا أسكو في عنا سد حدي بلاد وحتجي جري رابطة العالم الإسلامي دولة سعودية وسعودية جرتي كن الشنبخ الريال يعني دولة الشنبخ الريال يقادن جري جست وحالله هاير جري إنه فافية مذهبته وما عرفتي ده كان إليه إنه نهابيين تاع مذهبته سوء فافية لعكته سوق خارج حتى اسمه ما اسكت بيجري أنا قلنا له باشالي جري بخت هينن لكن مشاركة سوق خارج جري مركز فنجلين أو بنك سعودي ويجرتي إنك صار هذا عام مخلي دولة عن عصب بقر سلمان يويلكس إني جوجيان فنجلين تاس لكن فنجلين كاس ويجرتي إيه هب كان كلاتها أبارة جرت لبعتها جرتي هذا قدام بيس خرج حزاب مركود عاي قفك أمورك هذا اليوها كشكيو سافر يستي ميديا سلا هبينكي عن كهدلان إيري ورمان خرحنا دوكن على مكة إيه مدينة علماء حنجرها صبح لها يعني حزب قيلين لها لكن تي سومالي كده عيد كهد لي سومالي
dhowr maalin kadib kulligood waxay u fadhiisan tabaruc in loo aruuriyo zooba qaraxii dhacay laakiin qaraxa wixii keeni kama hadlin waa ogtahay sheekha kaleete aad taqaanid umullovin inuu yiri يعني انت شريعه الاسلام كودك لو حكومين قرحان وو سكونايا يعني دبكي بنزين ابو كسي شوي markii qaraxyada u joogso waa in shariicada lagu xukumo wadankii shariicada lagu xukumo maanta Sacuudi oran kara Sacuudi hada shariica islaam lagu xukumo meesha shariicada in u baahan tahay in laga sifay waxyaabo qalad ku jira oo gadaal laga giliyay marka saadaradeed yani dadkaas un weeyaan dadka mad waayahay sheekh Shibilana toddobaadkan casuumaya asagana oo kolba ka hal doolar waxa kaas jawaabahooda bixi doono in mataqaana waana soo casuumaya waxaan ku weydiinayaa heesaha seed u aragtaa heesuhu ma bannaan yihiin ama arinta heesaha hadii loo sii daadago diinteena islaamka hadda ma bilaabanin waxay bilaaway waagii nabigeena calayhi salaam maanta wadaadadeena ama dadkeena da'da ee Soomaaliyeed ee noolaa 70 meeyadii iyo wixii ka horeeyay ma maqli jirteen heesaha xaraam ah culimadana duruus way akhrin jireen wiligeena masaajideena 10 waa ka qaadan jirnay heesa xaraam ma la maqli jirin maxaa dhacay sababtoo kutubtii culimadana waxa kamid ah xujjatul islaam abi hamid al-ghazali ihya ulum ad-din kiisa oo qarnigii shanaad mujaddidkii islaamka ninka cusboonaysiiyay qayb dhan u bixiyay kitaab as-samaa' kitaabkii dhageysiga heesaha ee ku amaanay ahadiista daciifka laga abuurtayna kulli naqdi ka hadlay waxa kamid ah culimadana caalamkii jaliilka ah weynaa la wada yaqaan imaam Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah wuxuu yiri al-ghinaa wal-'ud min zinati al-hayat ad-dunya wala yatadawaqaha illa man lahu qalbun wasi' heesaha iyo muusiga quruxda adduunyada kamid tahay waxaana ku raaxaysta qofkii qalbi waasi' xambaarsan Abdul Qadir al-Jailani isagana gaaba ma la oran kara Abi Hamid al-Ghazali uu ka hadlay walaalkiisa ka weynaa Abu al-Futuh Ahmad الغزالي كتاب لنا ألف وبحيه بوارق الإلماع في تكفير لمن يحرم مطلق السماع برق ذي افتيميسي أو كقالي سيناي كي حرامت مي هسا حرام كي يروى قال صوته وح إلهي حلال كدق أيو حرام كدق يا هسا حرام كدق ابن تيمية أو قرن جيس ديوات جري لما قرن لسكو قراء حتى وحرام يا كوها فقي أرض جيس ابن القيم أو أسيغن كو حد قدو أرض أسي واسعي يا كو خلافي لو يس أرضي أو كو دم يسوق وحكو خلافي لو يس أرضي حافظ الذهبي كتاب أيو كخوري أو كو عدينا أرضي ابن تيمية وين كو عدينا يساينا حلاليين حافظ ابن حجر ابن رجب الحنبلي نيك شرحي 40 كنووي كتاب الخوري وير إمتاع الأسماع في إباحة السماع يعني دقاه وحان أقول راحينا إني بنايين هسا علماء صدن لما قالوا يسينين إمام كي حرم كدوشيناي إمام عادل الكلباني وحير هسا وحلال لما قالوا يسينين إمام المغامسي إمام كنيك مسجد القبة مدينة المنورة هسا وحير خفك موزق وحرام يرخف إليك بقى معها السجل لما قالوا يسينين لكن خفك كشكي لو صوته قالوا يسينين معها هسا حلال كدقي هسا حرام كدقي لكن وحويان هل عندك قبته جيدك وحقته مويس marka adu hadda heesaha la iga fasaxaysa عليه heesu xaraan ma dhageysta heesaha waa hadal wixii wanaagsan waa wanaag wixii xunna waa xumaan ama muusiga hadii duf la garaacay oo nabiga duf loo garaacay asxaabtii loo garaacay cuud la garaacay muusiga nooc doona ahaado ama reggae music ha ahaado ama classic music ha ahaado ama yani hip hop nooc doona ha ahaado muusiga uu banaan yahay okay waa yahay shiicada sida warka shiicada aniga ajalad waan ka duubay aan eray war kutubta shiicada hadaad furtid waxay la mid tahay adigoo bulaacad ama boosaneero furay kaaga soo qurmaayo naceebka asxaabta iyo khuraafaad waana ka hadlay ilaa waxaan u malayn 20 minutes oo kale inaan ka sheekeynayay shiicada khatarteeda dawladda Soomaaliya waa ugu digay horena waa ugu hadli jiray hatta qaarkooda hadda aniga kuwa Canada ila jooga kitchener casharkii iyagoo fadhiyaan ayaan ka hadli jiray shiicada khatarteeda Soomaaliya ku tahay way dhageysan jireen laakiin hadda waa dad hoggaansan robots oo remote control ku shaqeeyo tii hore way iska dhaafeen suuqa waxay geliyaan kishkii waxa weeyaan waa shiico laakiin saan sheego khuraafaad been laga abuuray shiicadan waxa dad munxarifiin khaldan laakiin aniga islaamka kama saarin sida sheekhood ibn Taymiyyah oo islaamka ugu saarin adigu ash'ariya talaleeya ash'ariyina tamogasha ash'ari waa ku faana sharafay ita waa ogolahay wiligeena kama leexan ash'arinimada way yahay waraysi kaas ku soo laaban doonaa hadii ay ku maqlayaan ay ku daawanayaan sheekh umul iyo sheekh shibili iyo rag kale inta salafiga ah wahabiyiinta maxaad leedahay rag salafiyiinta ama wahabiyiinta waxaan oran lahaa ilaahina ka baqa kutubtii sax ah ku laabta kana toobadkeen khaladaadkiina isla weynida ka tanaasula xaqa waad ogtihiin ha qarinina la tubayyinanahu lin-naasi wala taktumuna ilaahi miisaaq ballan wuxuu ka qaatay
dadka ilaahay culimada ambiyadii iyo culimadii dadka inay xaqa u cadeeyaan aysan waxba qarinin xaqa adinku og maxaa idinkugu kalif inaad qaridaan ma lacag aad ku raadsanaysaan iyo samcad aad ku raadsanaysaan isla weynidana waxay kaa xijaabtay xaqiiqadii adiga maanta walaalkayga daahir caliso pagekaaga dhowr maalmood ka hor waxaad soo dhigtay ninkan wahaabiga nabiga caynaaha la lacnaday soo ma aha haddana se lama weynaanin markaad ogaatay inaad ku khaldanayd inaad tiri waan ku khaldanahay waa tii saxa aad soo gelisay iyaga laakiin maxaa u diiday xaqii inay soo bandhigaan isla weyni daraaddeed ma xaqiiqadeedu way ogyihiin kashka inuu gaal ahayn way ogyihiin kashka aqoontiisa diineed way ogyihiin waxyaabaha aan ka hadlay حتى واش شيء دود أنت ناس عتوه سو كلا خرينا يشي بالعلمي قارن وخرينا قارن وصوب بندقي ما يتن وخري تن وصوب بندقي قارن ما يعني دليل ما كلام مع السخرة أقول فسيرة وحنا واش حي محوق سو جواه صوته وجع عم كهذا علمي إنه تاي يجعن هذا اسمع بينا يعني هذا أرده إنه صدران مويان يجع ما يرى هذا كشك هسا وحالات مي ضد أيام لسمينا أنا ما أرن كران كشك عرفت أنا كهذا لي كل هل كان جو حتى وان قاعد صدق علميات إنه ما أرن كران أنا صابر أنا شبيلي أمر إله التوفيق ده الدعاء لنا أدعينا لكن أنا شخصيا رجع كمله قفك هدوب إسلوينك كجرت إله قرآن سعكيري سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق آيات كي واحد كل عيادة إسلوينك كجرت قفك هدوب إسلوين يا إله ما بهنوني مركز كان إسلويني إسكو بوجد أو كجرت وحكون وين يرى أنا ربكم الأعلى إلهي نوعاني ما أريكم إلا ما أرى وحيدين تسكلي آيات صحة مركز ذات كان الدنيا كفير سنة دينته إلهي درادس كماها لكن إلهي إنه سوهنوني أو ما عرفتي توفيق دوافجي إلهي جيسو حكماها لكن مسلمين توحان قعدسنا إنه تحدر كهذا الرقاص فتوين كذا إنه أدعيان إنه لا أفلق الدينين إيجا أو لقو ديانين أخلاق حمدان أي أرضه كتر بيئات حتى والله حكومي حتى هذه حكومة حق هذا والو فتوين قالتها قالوا دي الو فتوين سامس ما قبتها إنه ودلو والله يرتقفك مؤمن كأنه عاقل هذا ودداله ولا بعينه أنا دولة كندا ويأكتهي يعني وحياها اللي حكومي فيسبوك جيجا تليفوني مال بحول بالا الصعدة وحين يقول يراهدين أنت أتكرر جوكتين أنا قاكو إلى لنا لكن مالتي ودا كان كبح عنده حكسو جار مسؤول كمان هنا لكن ما هو بو أنجوبه ولا الصعدة وحول بالا يجا خلاص سخي كديكتين أو مر حاجرتي وحلقة هذيك هذا اللي سعنين عيدي عرف مركي لجار إن سوق لسوق جليي ninka weynaa shibilish ama shibilcaan inuu yiri war maalinta ciida ninkii kishkii isoo gowraco waxaan siinaa lacag intaas ah aniga intaysan soo gaarin dawladda Canada ogeed oo habeenkii oo dhan saddexaas maalmood waxa isku bedelaan ila soo xiriiray mar walba mayorka magaaladeena iyo kan booliiska xukuumadda magaaladeena wax walba oo keemiya waan kula soconaa arrimaha waa la soconaa maalmaha ciida dhan laga ilaalinayo shartooda marka calaal ahaan waan ku jiraa kalsoonida ilaahayna waan ku khawaasa daraad laakiin aan raagay saas yiraahdeen buu ka Nairobi joogo dooda inama disho cali raagay isagana ilaalo uu ku jira sababtoo ah mar gacanta way ka jibiyeen hadaa la soconin oo ku soo weerar mar maqaayad ku jira way ku soo weerareen booliis la waco 14 qof soo weerartay isagoo maqaayad ku jira ilaa ay hadda meelaha uu aado meelaha hubo weeyaan inuu tagi karo laakiin xorriyad ku socdo ma aha waqtiga masaacidkana mufakirka muslimka ahaa magaciisa maxaa ahaa maxaa Ismaaciil جبريل نيك خارج كتابكي خفك مرتدك لما تدلي كرو وحكوا حكمه إنه قال ياهي سامالي جناس وكل حريده وكنا لا جوري وسكو حبسين لهذا كندا نيروبي وحبسين ياهي ما له ما دخاخي كرو إيه مرك إله أقوم بخاين بين أدنى مدي خفك طالب بسعنيت مرك إيه مرك يكون حكمنا أنا قالت هاي وحي جرين لايت سينا نلقى عيارو داريان روبرتس كي يجا وهو جانسن ريموت كنترول وهي شيخ عبد القادر كشكي وما صنتهاي لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا وما صنتهاي الحمد وهو على كل شيء قدير هذا وما صنتهاي ولا مركل كل صدحه ما لبعض oo sugu nimaado markii aan wareesta nimanka saysan kadib hadaba heshid ka ogolaa inaad wareysatid may waa ogolaanayaan taas waxa weeyaan ogolaanaya wallah taas waxa ala 10 timaha ka soo baxday weeyaan meel ku qora السلام عليكم وعليكم السلام هاد سنه